Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la kulmay ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Maxamed Cumar Carte ayaa kala hadlay wafdiga arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo la dagaalanka argagixisada iyo diyaargaroobidda doorashooyinka dalka ka dhici doona. Waxaa meel wanaagsan inoo maraya federaaleynta dalka, dhanka kalena waxaan ku guuleysanay baabi'inta shabakad badan oo ka tirsan kooxda nabadiidka, taasi oo noo xaqiijinaysa in sanadkan ay dalka doorasho ay ka dhici doonto. Sidoo kaleetana Mudane Carte ayaa uga mahad celiyay dowladda Mareykanka sida ay u garab taagan tahay dowladdeena Soomaaliya. Waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad noo garab taagan tihiin safarka aan ugu jirno dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta dalka Soomaaliya, oo aan hubo in door weyn ay ka qaadatay ama ay ka ciyaartay dowladda Mareykanka. Sidaasi waxaa yiri Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka ayaa shir kala qayb galay wasiirka maaliyadda, wasiirka qorsheynta iyo saraakiil ka socotay Bangiga Adduunka, kaasi oo looga hadlayay diyaarinta miisaaniyadda sanadka 2017 iyo waafajinta qorshaha horumarinta qaranka ee miisaaniyadda sanadka 2017 iyo mashaariicda Bangiga Adduunka uu ka fulinayo gudaha dalkeena Soomaaliya. Nicmo Cabdi Siciid, SN TV, Muqdisho.